وقرتي أبد ما صنتها يعني أخذت تلفونك غادا هلو السلام عليكم عليكم السلام والله الأضواء ما سنسوله برنامج كان دوت قروح والله السلام سلامك بعدي وحنا لما سلام سلامك المسلم وقرتي والله أنا بقول ما عرفت كحلايو أنا ود قربان جوبنا دولها ما عرفت نقص الدولي ومريكا كنا وقلنا علينا ود كاين لو حنا نبكي إسدل إيو قبيل إيو سقجان إيو دكا يكون قمادي وأن نبضل أكل وأن الشباب إيو حزب الإسلام إيو الجن أي ودن يغفرين وما عرفت دكي إني يريراي واقف يا مدكر يتوسدح الجراء حتى الصراحة والدك لبسوا حري من الوحي الحراء لا يا جنة قريشة وقرتي لكن أضواء ما سن لكن وحرك إسلامك مقبط دينك إلا مقبط دينك على مقبط وحواي وحد أنا ما عرفت اللي بأخذ طبق وإلهي ما قبطه ما قبطه وصبالي أي ما قبطه بارك الله وقرتي واقف جزاك الله خير جزاك الله خير runtii عبد القنين حتى فاميلي قاركود ايموشن waxaan leeyahay runtii de kulay waxyaalihii ka socday cadaafad ku jirto cadaafad carabi weeye waxyaalihii ma taqaanaa ay qeyraysan yihiin waxyaalihii ka socday micnaha kulay baa mudaan la galay gobolka Minnesota waxaan oran lahaa marka bal wax badan la isku hubsado wax badan maaragtay runtii hal la fiiriyo waxa laga yaabaa in martaqaana la yiraahdo qof diray micnaha meel u diray waxa laga yaabaa in ciyaal baa martaqaana lagu taliyay inta lagu qarxiyo hadii oo garanayno cidii saa sameysay oo cidii ka dambeysay caruur la diray oo meel la geeyay aan waxaan qabaa in farta ku fiiqno oo la sheego hadii la ogayo caruur martaqaana in wax lagu akhriyo qalbiga la bedelay oo wax kale lagu bedelay cidii ka badadii la garanayo islaanta waa wadiin lahayd ay garanayso waxa oran lahayn maartay magacyada noo keen insha Allah taala inta taa uga baxaya وقرتي عبد القنين سؤال رأي أهان أوبيان هدي أتكهس هدين كويديو قرمات سلاذا هاي لبا وحيالا صوماليا وي كردمان دونان إذا مدن أجنبي هذا كوسكن صوماليا وي بحي دونان iyo in wadaadadan hadda la isku wada qaadayo culimada la wada leeyahay magacyo badan la kala baxana ma shabaab ama xisbi la baxay iyaguna way ka dhamaan doonaan labada goormaad isleedahay 5 years 10 years أنا waxaan qabaa inta la iska soo horjeedo oo مثلا laba garab la isku hayo oo mid kale oo galaanayn maaragtay wanaag in dhacdo waxa sheegaysa meesha ka bixmayaan waxaan tusaale ku soo qaadayaa dad waagi dawladda hore markay jirtay oo tan ka horeysay markii Itoobiyaanka la soo qaatay oo Itoobiyaankii ay xamar iyo meel la keenay dad ka soo horjeedo badan oo diidanaa oo Itoobiyaanka la keenayo yaani fogeynayay oo ba maanta u ololaynaya in Itoobiyaanka magaalada la keeno oo xamar la keeno Soomaaliya la keeno marka aan wax oran karaa umada Soomaalidu nimanka Itoobiyaanka la yiraahdo waxay cadowgeeda weeyaan laakiin waxa moodaa nimanka waa loo iska loo yaqaan ama siyaasadda ku jira marba markay xaalkoodu wuxuu yahay inay u qayl dhaansadaan oo iyo soo ka haystaan dadka ajnabiga ah marka igad iyo wixii la xiriirana wanaageena ma doonayaan inta marka inagu iska soo horjeedno oo qolob baxsanayso nimanka ajnabiga gaaladana meesha ka bixmayaan jamaacadka tilmaamaysana meesha ka bixmayaan laakiin markii umadu intay miis soo wada fariistaan oo ay masaalixdooda ogaadaan oo ay xanuunku gaaro oo mataqaana waxa lagu heshiiyo arrinka wala gaari karo waxaan oran karaa wax arrinka lagu gaari karaa Soomaaliya dhexdeeda in shir lagu qabto sababta shirarkii u dhameeyay oo dhan ama shirarkii dhamaantood ilaa laga soo bilaabo 91kii waxa lagu qabanaya banaanka lagu qabanaya waxaana ka qayb qaadanaya ama ajandayaasha waday ama codka lagu hadlayo iska laha ajaanib iska laha waqti in aad baad maasantahay adoo waqti lagu yareeyay maadaama Minnesota aad looga hadlay Cabdi Qaniin tan kolkan u gudbin wiilashii halkan laga diray Soomaaliya tagay ee ku dhintay diin ahaan marka aynu ka hadlayno maxay kula tahay ma jannay galayaan aadaab bay galayaan diin ahaan haddaad u fiirso maxay ku dhintay horta laba kala qaadanaa mid koowaad waxa weeyaan wiilashii meesha laga diray baatri oo meesha laga diray aan waxaan oran lahaa kulay cid haday dirtay oo la og yahay cid dirtay oo hebel leeyahay la keeno weeyaan mid labaadna haday cid dirtay cid way khaldanaayeen waxaan tilmaami karaa yaani da ahaan way yareeyeen wiilashaani waxa laga yaabaa inay mataqaana waalidku wali ay gacantooda ka bixin cid dirtay waa gafeen dambi bay galeen وهذه الأوجي هي إدرت أمل جرنا يويان هذه أي كل إنسان
yani dagaal ay ku dhinteen anigu waxaan oran lahaa arrinkaas yani jannada laga hadlaya janno galaya naar galayo waa arrin waxa weeye ilaahay subxaana xaqiis jira weeyaan laakiin badanaaba hadduu qofku innocent yahay oo kale ilaahay subxaana qalbiga uu qabtaa qofka qalbigiisa waxa uu ku jira buu qabtaa haddii wiilkaani yani jihaad uu arkay waxaanay tahay uu dagaal uu galay ama lagu galiyay dagaal uu galiyay uu dhintay waxaan ilaahay subxaana tacaala u rajaynaynaa wixii niyadiisa uu gashaday qofka isaga inuu heli doono oo maalinta qiyaama heli doono maadaama waxyaalaha ay ku dirirayeen niyadu jihaad ka ahayd wax kale ka ahayd ama iyaga macna niyadu jihaad ka ahayd laakiin ummadda dirtay waxa laga yaabaa in qofka lahay yani maskaxga lahayd marka waxaan oranaynaa dadka ayaga ahi waxaan rajaynaa ilaahay subxaana tacaala jannada geliyo niyadooda ilaahay subxaana tacaala u qabto wiilasha dhintay hadda 4 baa la soo sheegay inay yihiin kuwa dhintay 4ta dhintaba in ilaahay subxaana niyadooda u qabto jannada galayaan baan rajaynaynaa ilaahay subxaana tacaala weydiisanayna waa gartay aad baad mahadsantahay koolkan qaadan السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أضوم معصن 2 minutes بان هيسنا مركا سؤاشة رنتي نبوس. معناها سؤال ودي من سؤال الشيخ ودي سامحة وفرح رأينا لفقره سؤال الشيخ أوشل وحوي وفرح سنعي معناها ولشي مرتاي مرتي آذين actually وحي آذين سوماليا اللي إثيوبيا كجستي سوماليا. مركا وفر بعقل وبرنكرا إني نحس هاي معناها جميلتان إسكتار وما لا بدره ميديا نحو بوبونيا موتاي واقف إن شاء الله waxaan rajeyna ana udan shaqo kula baanahay laakiin waxa loo baahan yahay in state forward hore loo qaado in wadaadada isku yimaadaan sheekana waxaan ka codsanahaa in uu xiriir macnaha la sameeyo maadaama uu sheekh Soomaaliyeed yahay لكن ولكن lagu abuuro oo macnaha wadaadada isku keeno oo xiriir xaq telefoon la sameeyo maartay hore loo qaado state wanaagsan waagartay laakiin walaalkiis adoo line ka bixita line ka bixin soo kuma jirto line ka walaalkiis tada ka bixin waay hadii aad tirida wiilashii ee janna ay galayaan oo janna ay galayaan soo marka dhalinyarada kala dhihimayaan jannadii aan ka daba tagaynaa waa baxan ayaguna no macnaha wiilasha xilli waxay bixin munaasib ah oo eligible ah bixin macnaha xilliga bixin waxay 2007 Ethiopia Soomaaliya ku jirtay marka waxa la siin karaa macnaha xilligaas recent inta ugu bixin inay dinay inflation ka macnaha kuwii Soomaaliya ku soo galay macnaha waa gartay walaalkiis laakiin Ethiopia hadday wiilasha qaarkood hadday dhinteen Ethiopiana ma joogin wadanka marka taa maxaad leedahay la dagaalamayeen ma Uganda iska la dagaalamayeen Ethiopia u noqday masalada waa gartay aan waxaan ku dar lahaa saanu sheegna weeyaan kolley ummadda maanta Soomaaliya waxa ka socotay xaaladeedu waxa weeye hadii la sii faragashado inay sii xumaanaysa marka wiilasha ayaga ahi waxaan oranayaa hadii cid dirtayna waa khaldanay cid dirtay waxaan u rajaynaynaa insha Allah tacaala inay wixii niyadooda nabiga xadiis wuxuu ku leeyahay qof waliba qiyaamaha waxa la saaray wax niyada ku jiray maadaama wiilashaasi wali ma taqaana arrintaas ku baxayeen waxaan u rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala niyadooda ku jiray ku ajar siiyo ee jannada galay insha Allah tacaala waa gartay qadar yar oo ogeysiis inta aan telefoonka kala qaadan aan qadar yar oo ogeysiis geliyo Chuba Graphics waxay ku bishaaraysaa runtii Carmel Mall ku yaala waxay ku bishaaraysaa runtii in ay dadka baac mushtarada business ama business card hadeen noqon leedo brochure hadeen noqon leedo flyers hadeen noqon leedo in labada usbuuc ee ka haray July in ay markaasi discount aad ay u sameeyeen marka Anwar Graphic hadii Allah dowlad Carmel dabqa labada ay ku yaala fadlan ka gaar baan ku leedahay doonaysid business card ilaa 500 business card ina $10 ama $15 aad ku sameysatid fadlan ka gaar baan leeyahay aad ma maasantay waxa kale intuusan sakariya telefoonka igu furan ogeysiis kale aan geliyo isagoo aad u maasantay waqtigan ugu yardaraadis beritoole waxa jira convention center ka dhacaya in ay jiraan ogaadeen liberation front oo runtii debate aad u culus ay kaga taagan tahay convention center ka July 18 fadlan taana la goosan cabdi qani barnaamijkan oo soo noqon adigu aad maatinka aad runtii noogu timid ee aad ku soo dhiiratay in Soomaalida aad la debate garayso arrimaha noocan oo kale oo very sensitive ah bariyahan aad looga cararaya aad baad maasantahay cabdi qani. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.